su'aasheena 122aad sheekh salaadaha sunnada ah ee duhurka ka horeeya kee xoog badan in la tukado 4 ragcadood oo min 2 ragco ah iyo in la tukado laba ragco oo hal mar ahba yani afartii oo laba loo kala qaado. masaladaasi waa mas'ala khilaafiya. al-imam Abu Hanifa wuxuu qabaa in afartaba la isla tukado, afarta casrka ka horeeya, afarka duhurka ka horeeya, in la isla tukado hal ataxiyaad iyo hal salaamo naqsi loo sameeyaa fadli badan buu qabaa Abu Hanifa. laakiin waa laga xoog badan yahayo sida xooga badan waa in la kala tukado oo afarta ragcadood laba aad tukato ataxiyaadsato ka baxdo, labada kalena aad goonidooda u tukato, saasaa fadli badan. waana sida uu qabo al-imam Shaafici Ahmad ibn Hanbal waxaana aad ugu dooday masalada iyada al-imam ibn Khuzayma fi sahihihi bahthi uu ka qoray qiimo badan, waxaana faa'iideynaya inay masaladu sidaasi fadli badan tahay oo fiican tahay in la kala qaado labada afarta ragcadood oo laba loo kala tukado. waxaa faa'iideynaya xadiidka Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu markuu sheegay nabigu afar inuu tukan jiray duhurka ka hor, afarna uu tukan jiray casarka ka hor. xadiid noocaas markuu sheegay ayaa wuxuu yidhi Ali wuxuu yidhi yafsilu bayna kulli rak'atayn bitasliimin ala almalaa'ikati almuqarrabiina wan-nabiyyiina waman tabi'ahum min almu'miniina wal-muslimiin. yani markuu laba ragcadood tukado wuxuu ku jirahayo labada kale kaga goynayo kaga soocayay in uu salaamo malaa'ikta iyo nabiyada iyo dadka mu'miniinta raacay, bimaana waa ataxiyaadkii iyo salaamo naqsigii waa marka labu tukanayay waa ataxiyaadsanayay salaadu ka baxayay labada kale hadana la iimaanayo gooni ula iimaanayay. xadiidka Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waxa soo saaray Ahmad iyo Nasaa'i iyo Tirmidhi ibn Khuzayma, sanadkiisuna waa xoog badan yahay. Sheekh Albaanina wuxuu leeyahay waa xasan. xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa salaadaha maalintii afarta ragcadooda sida fiican wax weeyaan waa in laba loo tukado oo afarta la israacin. waxa kaloo tilmaamaya inay ka fadli badan yihiin sida kale, waxa tilmaamaya de siyaada la socoto markaad israaciso ataxiyaadku hal buu noqonaa Soomaa, salliguna hal buu noqonaya. laakiin markaad kala goyso laba ataxiyaad iyo laba salli Soomaa iyo laba fadhi marka ziyaaday wadataa, marka inay ka fadli badan tahay shaki male. wallahu a'lam.